Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Yasma channel. Haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka naga ilaawina. Haddii aad horey noola joogteenna fadlan muuqaalka like-ta ka ilaawina si ay dad badan u gaaraan oo ay uga faa'iidaystaan. Waxaan mar kale ka hadli doonaa barnaamijyada taxanaha caafimaadka. Maanta mawduuceena aan ka hadli doono wuxuu ku saabsan yahay dhawar xanuunka. Dhawar xanuunku waa waxa ugu badan ee dadku caafimaadka u raadsadaan ama shaqadooda uga baaqdaan, nolol maalmeedkoodana saameyn kara. Sidoo kale waa xanuunka ugu badan ee sababa qofka inuu noqdo naafo ama naafanimada ama waxa loo yaqaano disability-ga. Waxaa sababa oo ay fara badan yihiin dhawar xanuunka. Waxyaabo badan baa sababi kara, wayna fara badan yihiin. Waxaana qayb ka mid ah habdhaqanka qofka, sida inuu xoog u dhifto walax culus, qofka inuu wax aad u culus oo hal mar soo dhufsado, almiitada xad dhaafka ah, cayaaraha, shilalka. Dhabarku waxa uu ka kooban yahay seedo, sida aad la socotaan, seedo, miiqyo, murqo iyo nerves waxa loo yaqaano, xidido iyo lafo. Intaas buu dhabarku ka kooban yahay. Waa seedo, miiqyo, murqyo iyo nerves iyo xidido iyo lafo. Xanuun walba oo ku dhaca mid ka mid ah xubnahan aan sheegnay waxay sababi karaan inuu qofku dhabarku xanuuno. Qaybaha dhabarka: qaybta sare aagga qoorta oo xanuunta qofka waxaa loo yaqaanaa cervical vertebra. Qaybta hoose aagga daba qanaanta ee xanuunta waxaa loo yaqaanaa lumbar sacrum ama coccyx vertebra. Qaybta dhexe ee ku aadka xabadka oo xanuunta waxaa loo yaqaanaa thoracic vertebra. Marka dhabarka waxaa loo qaybiyaa qayb kore, qayb dhexe iyo qayb hoose. Marka qaybta kore waa qaybta aagga qoorta ah, qaybta dhexe waa qaybta aagga xabadka ah, qaybta hoosena waa qaybta aagga daba qanaanta ah aaggeeda. Calaamadaha dhabar xanuunka: xanuun joogto ah ama danqasho meel ka mid ah laf dhabarka, qoorta ilaa daba qanaanta ama barida. Xanuun mudul ah oo ku taagan qaybo ka mid ah laf dhabarta oo la dareemo kadib markuu qofku qaado wax culus. Xanuun joogto ah oo dhabarka qaybta dhexe ama qaybta hoose markuu qofku waqti badan fadhiyo ama uu taagnaado. Dhabar xanuun ku faafa dabada cajirada hoose ilaa cagaha ilaa suulka. Isgalka murqaha oo uu dareemo qofku marka uu istaagayo. Noocyada dhabar xanuunka: dhabar xanuunka wuxuu leeyahay noocyo kala duwan. Dhabar xanuun leh kabuubyo iyo jarayn ama tabardaro murqaha cajarada ama lugaha waxaa keena dhaawac ka yimaada laf dhabarta. Dhabar xanuun ku faafa cajaradaas ilaa lugaha waxaa keena nerves lagu magacaabo sciatic nerve. Waa dhabar xanuunka ku faafa cajarada ilaa lugaha waxaa loo yaqaanaa sciatic nerve. Caabuq ku dhaca neerfahaas markuu caabuq ku dhaco qofku wuxuu dareemayaa xanuun dhabarka ah oo ilaa cajarada ilaa lugaha ah. Dhabar xanuunka darsada ama qofku markuu dhabar xanuun in badan qabo, qofku marka uu qufaco waxaa sababa eerno ka samaysanta laf dhabarta ama xariirta. Yacni qofka dhabar xanuunka darsaday oo in badan qabay marka uu qufaco wuxuu dareemayaa eerno waxay ka samaysantaa laf dhabarka ama xiriirta. Dhabar xanuunka ay la socdaan qandho, gubasho, kaadida ama ku noqnoqoshada suuliga waxaa keena caabuq ama infection kaadi mareenka ku dhaca. Waxaa kaloo sababa dhabar xanuunka dhammaan xanuunada lafaha iyo murqaha ku dhaca sida xanuunka osteoporosis oo ah xanuun burburiya lafaha. Daaweynta dhabar xanuunka: ka hor daaweynta baaris guud ayaa la mariyaa bukaanka iyadoo uu diiradda la saaro
hadba nooca looga shakiyo dhabar xanuunka haya bukaankan, waxaana loo diraa dhiiga, kaadi, raajo iyo mashiiniska casriga ah ee xubnaha jirka lagu baarayo sida kombiyuutarada CT-ga ama MRI-ga. Qaababka kala duwan ayaa loo maraa daweynta dhabar xanuunka, mar walibana waxa ay ku xiran tahay calaamadaha la xiriira dhabar xanuunka. Dhabar xanuunka yar ama ay joogta keentay waxa uu qofku isticmaali karaa asagoo gurigiisa jooga, baraf uu saaro qaybta xanuunaysa, iyo daawooyinka xanuun baabi'iyaasha ah haddii uu bukaanku dareemayo xanuun daran ama waqti dheer soo jiray ayna la socdaan qaybo ka mid ah calaamadihii aan ka soo hadalnay. Waxaan go'aan ka gaaraa dhakhtarka kadib baarista, waxaana la siiyaa jirdhis isu dheellitiran, buuqa saaris iyo miisaan dhimis, cunto isu dheellitiran iyo misaajeyn qofkii loo misaajo, iyo dawooyin ku habboon bukaanka. Sidee looga hortagaa dhabar xanuunka? Mar waliba cab cabitaan kugu filan xilliga maalintii ah aad kaga hortagi karto infekshanka kaadida mareenka ah, sababtoo ah wuxuu sababaa dhabar xanuun. Iska ilaali adiga oo si qalooca u taagan, ha u garaacin wax culus, ha sameyn almiito zaa'id ah oo wax ku dhimi karta jirkaaga ama saameyn ku yeelan karta. Isticmaal raashin isu dheellitiran, cuntadaada ha noqoto cuntooyin raashin isu dheellitiran ay ku jiraan. Si khaldan ha u seexan ama ha u fadhiisan waqti dheer ama waqti kooban, ha u jiifsan ama ha u fadhiisan hal dhinac. Mar walba fadhigaagu ha isbedbedelo, jiifkaaguna ha isbedbedelo oo hal dhinac ha u jiifsan. Insha Allah waan rajeynayaa muuqaalkan qaybta koowaad inaad ka faa'iideyn. Fadlan wixii su'aalaha noogu soo qora xagga hoose commentiga. Insha Allah qaybta koowaad ee mowduuca ku saabsanaa dhabar xanuunka intaas buu ku egyahay. Insha Allah muuqaalada soo socda baan kusoo dhammaystiri doonaa. Dhabar xanuunku waa mowduuc aad u baaxad weyn, waxyaabo badan baana keeni kara, bulshadana mar walba wuu kusoo laalaabtaa. 5 qof 2 qof baa ka cabanaysa dhabar xanuun. Insha Allah waxaan go'aansaday inaan kasoo diyaariyo ugu yaraan 3 muuqaal. Muuqaalkan qaybta koowaad ee dhabar xanuunka halkan buu ka egyahay. Insha Allah waa inoo qaybta ku xigta insha Allah. Fadlan haddii aad ka heshay ama aad wax uun ka faa'iiday, ilaahaytaan naga ilaawin, una sii sheeg garay asxaabta.